xogayaha guud ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo ayaa loo diray waddanka Sacuudiga si uu boqorka Sacuudiga ugala hadlo arrinta Jamal Khashoggi. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu boqor Salmaan kala hadlay arrinta Khashoggi, kaasoo ka soo horjeeday siyaasadda boqortooyada waddanka Sacuudiga. But Mike Pompeo is leaving literally within an hour. Mike Pompeo ayaa tagaya mar dhow saacad gudaheed, laakiin boqorku waa uu diiday inuu wax ka og yahay arrinka, ayuu yiri madaxweyne Donald Trump. The king firmly denied any knowledge of it. Trump ayaa intaasi ku sii daray in xogayaha guud ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo uu u duulayo waddanka Sacuudiga uu kulan degdeg ah ula yeesho boqorka Sacuudiga boqor Salmaan. I just spoke with the king of Saudi Arabia. The king told me that Turkey waxaan hadda la hadlay boqorka waddanka Saudi Arabia. Boqorku waxa uu ii sheegay in Turkiga iyo Sacuudigu ay ka shaqaynayaan sidii ay gamcaha isugu qabsan lahaayeen gunta waxa dhacay. Sidaas darteed waan arki doonaa waxa dhacay. So we'll see what happens. Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay in boqorku uu iska fogeeyay eedeymahaasi oo uu sheegay inuusan waxba ka ogeyn maqnaanshaha wariyaha. boqorka Saudi Arabia King Salman ayaa maanta amar ku bixiyay baaritaan lagu sameeyo gudaha, kaasoo ku aadan maqnaanshaha wariyaha caanka ah ee Jamal Khashoggi, iyada oo la sameeyay guddi isku dhaf ah oo baaritaan ku sameeyay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul, halkaas oo ahayd halkii ugu dambeysay ee lagu arko 2 bishii Oktoobar. Khashoggi oo deganaa waddanka Mareykanka isla markaana ka shaqaynaya wargeyska Washington Post ayaa la waayay kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga, halkaas oo uu raadsaday dukumentiyo uu ku mehersan lahaa gacalisadiisa. Saraakiisha dowladda waddanka Turkiga ayaa sheegay in maamulka ay aaminsan yihiin in lagu dilay gudaha qunsuliyadda kadibna laga saaray meydkiisa. Eedeymahaas oo Sacuudiga uu dhinaciisa iska fogeeyay. Saciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star, Burco. waxaa dhammaaday waqtigii kama dambaysta ahaa ee kooxaha jihadoonka ah loo qabtay inay uga baxaan furimaha hore ee waqooyiga dalka Suuriya. Mana muuqato baa la yidhi astaan muujinaysa in kooxahan ay halkaa isaga baxeen. Dowladaha Turkiga iyo Ruushka ayaa kormeeraya qorshaha gobolka Idlib looga sameynayo dhulka caagan mintidiinta, taasoo looga gol leeyahay in la kala fogeeyo kooxaha fallaagada ah iyo weliba ciidamada dowladda waddankaasi Suuriya. balse dadka la socda arrimaha dalkaasi Suuriya ayaa sheegaya in mintidiinta kooxahan Islaamiga ah ay weli halkaasi ku sugan yihiin. ilaa iyo haatan wax war ah oo arrinta ku saabsan kama uusan soo bixin dowladaha Turkiga iyo Ruushka. Xukuumadda Moscow ayaa usbuucii la soo dhaafay sheegtay in dib u dhac yar oo ku saabsan dhaqangalka qorshahaasi mintidiintu uga baxayaan aagaasi aanan loo qaadan doonin wax weyn. qorshahaasi ayaa la dejiyay kadib markii wadamada Iiraan, Turkiga iyo Ruushku ay ku heshiiyeen magaaladaasi Tehran, xilli ay jirtay cabsi laga qabo in ciidamada dowladda waddanka Suuriya ay duulaan xoogan ku qaadaan gobolka Idlib. duulaankaas ayaa waxaa aad uga soo horjeestay dowladaha Turkiga iyo beesha caalamka. dowladda waddanka Turkiga ayaa heshiiska qorshahaasi ka hor ciidamo tiro badan ku xoojiyay xadka Suuriya ee Idlib, oo ay ku xoogan yihiin maleeshiyaad gacan saar dhow leh dowladaha Suuriya ka soo horjeeda, iyada oo tallaabadan uu Turkigu qaadayna lagu tilmaamay mid lama filaan ah. dowladda waddanka Turkigu waxa uu gacan siinayaa maleeshiyaadka gobolka Idlib gacanta ku haya, oo dowladda madaxweyne Bashaar al-Asad ay xilligaasi doonaysay inay ka qabsato goobaha hadhay ee ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadkaasi. qaramada midoobay ayaa iyaduna sheegtay dagaalada ka socday gobolka Idlib bishii Sebtembar oo kaliya inay ku qaxeen dad ka badan tiraba 38,500 oo qof. xiisadda ka soo cusboonaatay aagaasina ay horseedi karto dhibaato intaa ka sii ballaaran. dad lagu qiyaasayo 2.9 milyan oo qof oo ay ka mid yihiin 1 milyan oo carruur ah ayaa ku nool deegaanada Idlib, Hama iyo weliba degmada Xalab oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka garabka ka helaya dowladda waddanka Turkiga. Saciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star, Burco.